waxay mar walba qiiqdaa waa salaada maqrib iyo salaada subax kadib. laa ilaaha ila allah. walaalayaal sidaad u jeedaan waa qabri qiiqaya. qabrigaasna waxaa ku jira qof ayaa ku jira. qofkaas wuxuu noqon karay anigii adiga. walaalayaal sidaad ogtihiin qabriga su-aala ayaa la isweydiinayaa. sidaad ogtihiin qabriga walaalayaal ama waa god janno ama waa god naareed. qofkii camal wanaagsan la yimaada ilaahay subxaanahu wa tacaala god janno ayuu uga dhigayaa. qofkii camal xun la yimaada ee ilaahay caasiya god naar ayaa looga dhigayaa. walaalkayga muslimka ahow, walaashayda muslimka ahay, anigii adigaba qof kasta geerida uu dhadhamin doonaa. godkaas ayaana lagu aasi doonaa. haddaba miyaanu ognahay godkaas siduu noo noqon lahaa? salaada ma tukanaa? qur-aanka ma akhrinaa? qaraabada ma xiriirinaa? ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf ma weydiisanaa? walaalayaal qof kastoo bilaaadana uu gafayaa. xanta ayaa nagu badan, xinka ayaa nagu badan, xaasidka ayaa nagu badan. laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waa gafuuru raxiim. ilaahay wuxuu leeyahay nabi cibaadii anii ana algafuuru raxiim. addoommadayda waxaad u sheegtaa inaan aniga ahay allah dembi dhaaf badan oo naxariis badan. ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalayaal markaan ku caasino wuxuu leeyahay laa taqnatuu min raxmat illaah. raxmadda ilaahay ha ka quusanina. ilaahay subxaanahu